Caruurey, beri waxaa jiri jiray wiil yar oo aad iyo aad u wanaagsan, akhlaaq fiican leh, hooyadii iyo aabihii ay jecel yihiin, macallimiinta iskuulkana ay aad u jecel yihiin. Waayo wiilka yar wuxuu ahaa wiil yar oo edeb leh oo wanaagsan oo waxbarashadiisuna ay fiican tahay. Inankaa yar wuxuu ahaa inan yar oo run badan, waayo hooyadii mar walba waxay u sheegi jirtay inuu beenta iska ilaaliyo oo mar walba uu runta sheego. Maalin maalimaha ka mid caruurey, ardaydii wuxuu u diray macallinkii shaqo guri, taasoo ahayd inay soo qoraan mowduuc ku saabsan waqtiga xagaaga. Wiilkii yaraa ee Maxamed gurigii buu tegay, waanuu soo weysaystay, wuu tukaday, qadadiisiina wuu cunay, wuxuu u fadhiistay si uu u diyaariyo shaqo guri uu macallinku u soo diray oo ahayd inay ku soo qoraan guriga mowduuc ka hadlaya xagaaga. Caruurey, Maxamed yara markuu wax yar wax qoray wuu daalanaa, wuxuu yidhi waan daalanahay, waan yara seexanayaa, hadhow markaan soo tooso ayaan qori inta ii dhiman inshaa Allah. Caruurey, markuu Maxamed hurdadii ka soo toosay wuxuu ilaabay inuu dhammaystiro casharkii macallinku uu berri ka rabay ee ahaa mowduucii xagaaga ka hadlayay. Maxamed yara wuxuu bilaabay inuu ciyaaro. Markuu ciyaartii dhameeyna waqtigii cashada ayaa la gaadhay. Markuu cashadii cunayna wuu soo cadayday, dharkii jiifkana uu soo xidhay, waanu seexday. Subaxii markii la gaadhayna iskuulkii ayuu isku diyaariyey, isagoo tegay iskuulkii. Jidka markuu sii socday wuxuu arkay saaxiibkii Cali. Maxamed, iska waran, ma soo qortay mowduucii macallinku inoo diray? Alla maya, maan soo qorin, waan ilaabay. Maxaan sameeyaa hadda? Macallinkii wuu iga rabaa mowduucii. Dhib ma laha, macallinka been u sheeg oo waxaad tiraahdaa macallin waan daalanaa oo waan xanuunsanayay, waxbana ma qori karaynin, markaa kuma ciqaabayo oo wuu iska kaadayaa. Caruurey, macallinkii markuu fasalkii soo galay, ardaydii wuxuu ku yidhi subax wanaagsan ardayey, sidee tihiin? soo saara buugaagtiina saan u eego casharkii aan idiin diray. Qof walba mowduucii uu xilliga xagaaga ka soo diyaariyey si aan u arko. soo saara buugaagtiina ardayey. Caruurey, macallinkii wuu eegay ardaydii buugaagtoodii mowduucii ay soo qoreen. Markii la soo gaadhay Maxamed wuu fikiray, waxaanuu idhi ma been baan sheegaa, maxaan sameeyaa? Markaa wuxuu soo xasuustay hadalkii hooyadii ay mar walba ku tiraahdo been ha sheegin. Maxamedna macallinkii runtii ayuu u sheegay, wuxuu yidhi Macallin, waan ilaabay inaan mowduucii soo qoro. Macallinow, markaan ka shaqeeyay casharadii layliga ahaa ayaan is idhi yaro seexo hadhow si aan u qoro mowduucii xagaaga ka hadlayay, laakiin waan ilaabay markii dambe oo ma xasuusanin. macallinkii caruurey wuxuu ku yidhi Maxamed yare, Maxamedow, maxaad been iigu sheegi weyday? soo ma ogid hadda in lagu ciqaabi karo waayo mowduucii lagu diray maad soo qorin? Maxamed yarena wuxuu ku yidhi caruurey, Macallinow, hooyaday ayaa igu tiri been ha sheegin, mar walbana runta sheeg. Sidaa awgeed ma rabo inaan been kuu sheego macallinow. maasha allah, fariid ayaa tahay, maadaama aad runta sheegtayna waan ku saamaxayaa maanta. caruurey, macallinkii wuu farxay, sacabkana wuu u tumay, wuxuu yidhi maalinta dambe ha ilaabin casharka lagu diro ee soo qor Maxamed yarow. caruurey, macallinkii ardaydii kalena wuxuu u sheegay inay ku daydaan Maxamed yare oo runta ay wanaagsan tahay, beentuna ay xun tahay.